Audio Jungle. Audio Jungle. iyo dhaawac ee ka dhashay dadka ku dhintay qaraxii maanta waxaa ku jiray arday gaarigan ay nala socdeen lama oga in ay dhammaantood ku la'deen iyo in ay wax ka badbaadeen ardaydii saarnayd gaarigan gubtay iyo in kale balse si nabad ah ayay guryahooda uga soo baxeen kuna sii socdeen goobtooda waxbarashada wuxuuna ehelada ardaydaas iyo dadka kaleba qaraxan ku reebi karaa uur ku taalo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo qaraxa kadib goobta tagay isagoo ay dhinacyada ka joogaan saraakiil sarsare oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa qiray in aysan ahayn saameynta qaraxan mid yar wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan dhimashada tira rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa sagaashameeyo sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahayn jaamacadda Banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa laayay dadkaas dhagari qabayaasha ku soo duulay dalkeena Soomaaliya dhimasho iyo dhaawac ka sokow wuxuu reebay qaraxan raadad burbur ah oo soo gaaray guryaha iyo goobaha ganacsiga gaadiidka gurmadka degdega ayaa isu dhaafayay goobta ay wax ka dhaceen si ay gurmad ugu fidiyaan dadka musiibadu soo gaartay lama oga bartilmaameedka gaariga qaraxyada laga soo buuxiyay ee ismiidaamiyuhu fuliyay in uu ahaa halkan ex control afgooye iyo in uu u socday meel kale oo ka baxsan halkan cabdiwaxiid cabdullaahi daahir waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhacay muddooyinkii dambe abbaaro 8 subaxnimo ee Sabtidii maanta halkan oo ah isgoyska ex control afgooye waxaa ka dhacay qarax ismidaamina goobta hoowaad mashquul u ahayd ayaa mar qura isbedeshay lama oga tirada rasmiga ee dadka halka ku dhintay balse saraakiisha ayaa sheegay in khasaaruhu uu aad u badan yahay ciidamadii ku sugnaa xaruntan la weeraray canshuuraha lagu qaado dad shacab ah iyo laba qof oo u dhashay dalka Turkiga ayaa ka mid ahaa dadkii lagu dilay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee halkan ka dhacay gaadiid badan ayaa sidoo kale halkan ku gubtay waxyaalo kala duwan ayaana gaartay dadkii la socday gawaaridan oo ay ku jireen arday waxaana la aaminsan yahay in dhismooyin burburay weli dad ay ku hoos jiraan goobjoogay ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu ka sheekeeyay waxa uu arkay markii qarxaasi uu dhacay waa cuqubadaas ayaa dhacday waxaas aad arkaysaan ummadana waxa weeye la isma yaqaan waxa waa meesha waa dad xitaa wax iska daay ciyaal baa ku dhamaaday nimanka ardada jaamiciintan oo ku jira halkaan ku dhamaaday meeshaan way ku baaba'een indhaada maxay aqabteen markuu qarax dhacay waxaan arkay 12 qof oo bidaysa bal wax kale saas u bidahayeen qaar waxay ku dhaceen meeshaas oo aan ka soo gurnay hilbahoodii halkaan waxaa ku dhintay madaxdii meeshaan xukuntay alyoom iyo ninka la yiraahdo saylac iyo meeshaan ku jiraan hoose hadda ku jiraan waa rag baaba'ay oo booliska gaariga qarxay waan arkay wakaalka halka wata laga qaaday ya Turkiga halkaas u galay waa meeshaas meeshuu galay Turkigu laba nin bay ahaayeen gaariga waxay noociisa ma sheegi karo waxaas ma yiri ma aan lahayn anoo dhan xitaa waa qarsoomay oo habaaskii iyo dhaska hadda isbiya ku soo mayrtay habaaskii iyo wixii oo dhan baa na qariyay markaan soo nimidna meeshaan ardayda markaan arkay madaxdii markaan arkay aniga waxaan sameeyay miirkii oo dhan baa iga tagay iyo maskaxdii meeshaan cuquba ka dhacday aabo wakaab wax la yaab laha dhacay dhimashada aragtay meeqa waxa weeye dadku 70 kama yara waa dadka dhintay
dhaawacu wuxuu ahaa 4 gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Filisha oo goobtaasi gaaray kadib markii weerarkaasi uu dhacay ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu ka hadlay qasaarihii ka dhashay weerarkaasi ismidaaminta ahaa mashada tira rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa sagaashameeyo sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahayn jaamacadda Banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa laayay dadkaas dhagari qabayaasha ku soo duulay dalkeena Soomaaliya ma aha markii ugu horeeyay oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen mar kasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka magan galnay shartooda bulshada Soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadowgooda iyo saaxiibkooda halkan oo haysgooska X control afgooy waxa ka dhacay qarax weyn isla markaana geystay saameyn aad weyn saraakiisha amnigu waxay sheegeen in qasaaraha halkan ka dhashay qaraxaasi ilaa imika aan lahayn tiro koob sax ah dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay maamulka gobolka Banaadir oo goobtan soo gaaran waxa uu sheegay in imika ay hayaan ururinta xogta rasmiga ah ee qasaariga ka dhashay qaraxii halkan ka dhacay asaatee marka la eego qasaaraha qaraxan uu geystay waxa uu yahay mid baaxad weyn marka la eego tirada dhimashada tirada dhaawaca oo ilaa imika dadku ay sheegayaan in xaddigu ay dhaafto aan la tiri karin waxa sidoo kale dadka halkan ku dhinta ku jira dad u dhashay dalka Turkiga oo ka shaqeynayay wadada dhismaha ku socda ee afgooye dadkaasi ayaa la sheegay gaariyaan 2 qof oo Turki ah sidoo kamid ah dadkii halkan ku geeriyooday goobtan la weeraray waxay ku taallaa isgooskan X control afgooye waxaana lagu qaadaa canshuuraha isla markaana saaka waa berigii hore ayaa gaari waxa qarax soo buuxiyay halkan lagu dhuftay qasaarihii ugu badnaa ayna halkan ka dhashay inta la og yahay Salaaman Xayti Xamdraagi Soomaali Cable Muqdisho abda ciise aad ma santahay sida aad ku sheegtay qaybihii hore ee barnaamijkeenaba qarax weyn ayaa saaka ka dhacay isgoyska X control afgooye ee magaalada Muqdisho oo ah bar control oo aad u mashquul badan oo wadadan ka timaada dhinaca number 4 gaadiidka ka yimaada wadada ka timaada dhinaca jidka warshadaha ee soo martay wasaaradda gaashaandhigga wadadan ka timaada dhinacan xoosh iyo wadadan ka timaada dhinacan afgooyeba gaadiidkii dadka ka yimaadaba meesha kulmaysa ay tahay marka xilli aroora oo dadku ay shaqo tagayeen qaarkoodna ay goobahooda waxbarasho u socdeen ayaa qaraxu meesha ka dhacay dad badan ayaa ku geeriyooda meeshaasi oo isugu jiray dad arday ah kuwo xoogsata ah kuwo shaqooyinkooda u socday marka waxay ahayd masiibo marka la eego sida ay maanta wax u dhaceen iyadoo qaraxan uu geystay saameyn xoog leh oo la arkayo muuqaalka meesha qofkii taga burbur xoog leh iyo uura madow iyo gaadiid badan oo ku baaba'ay goobta marka waxaa jirta tiro badan oo dad shacab ah oo qaraxan ku geeriyooday iyo kuwo kale oo ku dhaawacmay walina waxaa la raadinayaa tiro koobka guud ee dadka waxyeeladu ay gaartay laakiin tiradu ma yara Cabdi Casiis marka la eego siday wax u dhaceen iyo goobtu siday ahayd isgoyskaas waa taqaanaa waa meelaha ugu mashquulka badan isgoysyada ku yaala gobolka Banaadir waa meeshii xamar looga sii baxayay dadka soo galayana ay soo galayeen wadada xiriirisana waxaad ogtahay inay tahay Muqdisho afgooye wado iyana muddooyin ku dambeeyay deegaanada ku hareeraysan dadku ay aad u camireen oo aad u dageen waxaa dadkii dhaawacmay la geeyay isbitaalada qaarkood waa la aqoonsan lahayd dadka geeriyooday kuwa dhaawacmay isbitaalada la qaarkood dadkoodii ayaa baadi goobaya waxaa la dalbanayaa in dadka dhaawacyada isbitaalada ku jirto lala gaaro dhiig iyo gurmad si ay xaaladooda loola tacaalo marka warar ayaan oo ilaa hadda aan raadinayno hubintoodan waxay sheegayaan in arday saarnaa gaadiid kuwa BL ka la yiraahdo iyana meesha ay ku basbeeleen
waxaan loo sheegay in jaamacadda banaadir ardaydaasi iyo gaadiidkaba ay lahayd gaariga laakiin mas-uuliyiintooda aan la xiriirnay weli ma aanan helin in ay telefoonkeena ka jawaabaan si aan u helno xog ku aadan arrintaasi waase sii baari doonaa haddii arrintu ay tahay arrin saxa iyo haddii ay warkaas uusan weli san lahayn waxaa kaloo jira oo wararkana soo gaaray ka mid a in gaari ay saarnaayeen shaqaalo turki ah iyana la beegsaday qaraxa oo ay meesha waxyeelo ka soo gaartay in wararka hore soo baxaya ay ka mid yihiin goobta masiibadu ay ka dhacday suxufiyiinta way tageen meesha qaarkood hadda waa la kala eriyay oo waa loo diiday mas-uuliyiinta dowladda ayaa iyana halkaas jooga guud ahaan meeshu uma qurux badna saakay tiim ka mid a universal oo meesha tegay waxay noo soo sheegeen in carunka dhiigga meesha yaalla dadka qaar aanay suuragal u ahayn inay meesha sii joogaan marka xaaladda guud cabdi casiis saako